ma xasuusataa musharax maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo markii uu musharaxa ahaa uu hortegay baarlamaanka soomaaliyeed isagoo weydiisanaya inay madaxweyne ka dhigaan khudbadiisa wuxuu u ballan qaaday ummadda soomaaliyeed iyo baarlamaankaba haddii madaxweyne loo doorto inuu keeni doono inuu magacaabi doono ra-iisul wasaare asaga ka fiican ka howlkarsan ka daacadsan ka shaqo badan iyo sidoo kale ee xil 4 sano ay isla dhammaysan doonaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo markay baarlamaankii doorteen February 8 2017 wuxuu magacaabay February 23 2017 ra-iisul wasaare xasan cali kheyre siyaasi aan ummadda soomaaliyeed hore aysan u aqoon magaciisana ummadda markaas ay ugu horeysay qaasatan aniga haddaba xasan cali kheyre wuxuu muddaxileedkiisa hayay 3 sano iyo bar laakiin shalay oo sabti ahayd taariikhda 25 bishii saddexaad 2020 baarlamaanka soomaaliyeed ayaa afka ciidda u daray kursigii uu xukunka dowladda soomaalidu hayana ka xayuubiyey waxaan isweydiinaynaa su'aal maxay tahay sababta dhabta ah ee uu xilkiisa ku waayay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre haddaba anigoo maxamed faaraxa waa fikirkayga arrintan ayaa waxaan qodbeeyey 4 arrin inay ugu weyn tahay sababta uu xilkiisa ku waayay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre sababta koowaad xasan cali kheyre wuxuu soo dhisay xukuumad aad iyo aad u fara badan ka kooban ilaa 68 wasiir iyo wasiiro ku xogeen oo aan tayo lahayn oo aanan waxna qaban 3 sano ee xukuumaddaas jirtay badankood dhammaantood aan ka ahayn 5 wasiir ilaa 6 wasiir oo xirfadlayaal aqoon-yahana oo shaqadooda qabsan laakiin wasiirada badankood waxay ahaayeen kuwa iska sacbiya nacamleeya ah oo aanan waxna qaban balse u nacamleeya xasan cali kheyre midda labaad oo ugu muhiimsan waxay ahayd waxaa loo doortay xukuumaddiisa in amniga soomaaliya dhammaanteed ay wada sugaan haddaba xukuumadda xasan cali kheyre intay jirtay al-shabaab waxay ka qabsatay oo keliya 3 degmo waa marka awdhiigle iyo janaale al-shabaab weli waxay threat ku tahay ama ay haysataa dhammaan gobollo badan degmooyin badan oo soomaaliyeed balse xukuumaddan waxay ka gaabisay la dagaalanka al-shabaab iyo la dagaalanka isis weli khatar ayay ku yihiin labada urur soomaaliya xataa muqdisho ayay waxay ka qaadaan canshuur markay rabaanna wax ku dilaan qaraxyaal badanna ay ka fuliyaan gobolooyin badan iyo degmooyin badanna way haysaan xukuumadda xasan cali kheyre waxay ka gaabisay inay la dagaalanto kana xoreyso waddanka al-shabaab qodobka saddexaad xukuumadda xasan cali kheyre oo hogaamiyo maysan soo dhisin ummadda maysan u keenin constitution dhammaystiran qabyo qoraalkii constitutionkii hore waxaa laga rabay inay dhammaystirto ummadda ee u keento constitution ay ka doodaan kana codeeyaan ayna doortaan ilaa iyo hadda 3 sano iyo bar sharci maysan soo hagaajinin ummaddana maysan usoo hordhigin baarlamaankana maysan usoo hordhigin qodobka afraad ee ugu weyn eena keentay sababta xasan cali kheyre loo eriyey baarlamaanka soomaalidu eriyeenna waxay tahay in xasan cali kheyre uu xukuumaddiisa markii hore ay soo ansixiyeen doorasho popular vote ah 1 qof iyo 1 cod ah kabacdina baarlamaanka ay keeneen ay ansixiyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajona uu saxiixay kabacdi waxaa ku dhalatay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ama markii horeba ku jirtay ambition ah in uu madaxweyne noqon karo uunasan ka tanaasulo inuu ra-iisul wasaare u noqdo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo haddaba isbedel weyn siyaasada ayaa ku dhacay kadib markii ay xukuumaddiisa keentay 1 man 1 vote popular vote ee baarlamaanka hordhigtay kabacdi xasan cali kheyre markuu kasoo laabtay qatar wuxuu qabtay shir golaha wasiiradiisa wuxuuna sheegay in doorasho ee dhacaysa xilligeeda loona baahan yahay saamilayda siyaasadda in laga soo qaybgeliyo taasoo ka duwan midii uu rabay asaga ninka doortay ee madaxweynaha ah iyo baarlamaanka oo rabay oo ansixiyey sharcigii doorasho qof iyo cod ah ee aysan soo xulan clan system sharcigii aan ku beesna iyo regional leaderska inaysan soo xulan balse dadka qof walba uu codeeyo xasan cali kheyre wuxuu isbiday damac siyaasadeed oo ah in sababta keliya oo madaxweyne soomaaliya kaga noqon kara ay tahay in baarlamaanka doorashada badan ee ka dhacdo dadka aysan soo dooran maamul goboleedkii odol qabiilada ay soo doortaan sidii awal dhici jirtay sidii maxamed cabdulaahi farmaajo lagu doortay xasan sheekh lagu doortay taas ayuu isbaday hal taas oo kasoo horjeestay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo baarlamaanka waana midda keentay in xisbiga nabad iyo nolol 3 sano iyo bar ee dhismuysay sababo ogood ah siyaasad inay hoos ka wada dagaalamayeen farmaajo iyo xasan cali kheyre waxay soo caan baxday khudbadii mataqaana uu u jeediyey
golaha wasiirada iyo shirkii dhuusa mareeb uusan madaxweynihii soo fadhiyo uusan difaacinin uusan maamul goboleedka u sheegin inay dhacayso doorasho one man one vote shacabkana ay soo dooran doonaan qofka siyaasiga ee rabaa inay matalaan balse aysan maamul goboleedka shuqul ku lahayn halkaas ayay ahayd midda ay ka qorunto sheekada xasan cali kheyre kabacdi markuu maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ku laabtay muqdisho waxaa dhacday in baarlamaankii mataqaana arrintaas ka adeegteen kana shaqaysteen xukunkana ay ka tuureen maadaama baarlamaanka soomaaliya laftigooda danahooda ay u arkayeen in uu xasan cali kheyre rabo inuu laalo baarlamaanka soomaaliyeed awoodda baarlamaankana uu ku wareejin rabo maamul goboleedyada haddaba maxaa la gudboon xasan cali kheyre maadaama uu xukunka ka tegay xasan cali kheyre damac siyaasad uu lahaan karaa waa nin raga waa siyaasi damac siyaasad uu lahaan karaa laakiin waxay ahayd kuna habooneed inuu la dhamaysto muddaxuleyska maxamed cabdullaahi farmaajo kabacdi xisbiga nabadda isla dhisaan haddana mataqaana maxamed cabdullaahi musharax madaxweyne u noqdo hadday ku guuleystaana kabacdi asaga madaxweyne noqdo laakiin waxaad u moodaa inuu xasan cali kheyre degdegsiina aadna ay ku jirtay la taliyaal xunna uu lahaa uu damcay inuu asaga ka baxo nabad iyo nolol iyo farmaajo gooni u baxo lana xirto maamul goboleedka sidaas uu mataqaana ku tartamo kursiga siyaasadana uu ku raadiyo gunaanadkii waxaan kusoo gunaanadayaa middan waan kusoo qatimayaa ambitionka political ambitionka uu leeyahay ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre 170 xildhibaan ayaa xukunka ka qaaday 8 xildhibaan oo kalina waa difaacday wasiiradiisii dhammaa khadiijo u hogaaminaysa beyle ayaa xukunka ka tuuray xasan cali kheyre hal wasiir oo keliya wasiirka amniga islow maxamed cali islow ayaa kasoo horjeestay iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta taasi waxay ku tusinaysaa xataa xasan cali kheyre golaha wasiiradiisii inay kasoo horjeesteen baarlamaanka laftigiisii inay kasoo horjeesteen oo ku lahaa 40 ka badan wasiir taasi waxay ku tusinaysaa inuu taageero badan lahayn damaca siyaasad ee foosha xun ee xasan cali kheyre watay waxay noqotay mid uu ku halaagmay maantana barxad cilla uu fadhiyo xasan cali kheyre waa siyaasi codkara markuu hadlaya kaa dhaadhicinaya wax walba ummadda soomaaliyeed qulubteedana soo jiitay dad badan oo soomaaliyeedna qulubteeda soo jiitay laakiin qalbigiisa waxa ku jira wax kale afkiisa iyo qalbigiisana ma israacsaneen hadday daacad ka ahaydna midnimada soomaaliyeed iyo degaanashada soomaaliyeed soo sheegana madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo mar walba wuxuu ku celcelin jiray ra-iisul wasaaraheen waa wada soconnaa waa wada shaqeynaa xisbina waa wada subsananaa laakiin xasan cali kheyre weli lagama hayo khudbadiisa aniga iyo maxamed cabdullaahi farmaajo waa wada soconnaa isku xisbi ayaa nahay hal wadanka waan isla dhiseynaa taasi waxaa kusugaa daacad inuusan ahayn xasan cali kheyre balse uu ahaa khiyaanoole minji xaabinayay madaxweynihii asaga xukunka keenay soona doortay siyaasadda soomaaliyana soo geliyey haddaba aniga maxamed faarax cabdullaahi waxaan u rajeynayaa xasan cali kheyre kheyr iyo baraar waxaan kaloo ka codsanayaa maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynaha soomaaliya inuu ummadda soomaaliyeed u keeno ra-iisul wasaare daacad ah 6 bilood la dhamaysto waxna u qabto khaasatan ra-iisul wasaare aqoon leh karti leh hufnaan leh ummadda soomaaliyeedna wax u qaban karo 6 bilood oo hartana ummadda gaarsiin karo one man one vote proportional election soomaaliya doorasho way ka dhici kartaa ummadda soomaaliyeedna way ka daaleen in ay doortaan oday qabyaalad iyo maamul goboleed ay rabaan qofka ay soo doortaan laakiin ummadda soomaaliyeed waxay u baahan meel walba ay soomaaliya joogaan inay soo doortaan siyaasiga ay rabaan lana xisaabtamaan siyaasigaas oo ka cabsado shacabka soomaaliyeed adeecona awaamiirtooda sababta keliya midaas ku imaan kartana waxaa waaye inay soomaaliya ka dhacdo one man one vote gobolada ay al-shabaab haystaan iyaysan ka dhicin gobolada ee dowladda joogto iyo goboleedka joogaan waa inay ka dhaca proportional election lahaa wuxuu ka dhacay electionkan ciraaq iyo afghanistan oo annaga naga amni xun afghanistan oo ugu yaraan 35 milyan ah wuxuu ka dhacaa keliya caasimadda kaabul ayuu election keliya ka dhacaa balse laakiin soomaaliya maanta waxay ka dhici kartaa degmooyin fara badan gobolooyin fara badan gunaanadkii ugu dambeyntii waxaan oga baxayaa warkayga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo noo soo dooro ra-iisul wasaare aada isku siyaasad tihiin kuna khiyaanaynin kuna la shaqeeyo kuna la dhammaystiro fikirkaaga siyaasadaada sida ummadda soomaaliyeed kuula xisaabtanto aan toorabiin kugu fiirino 4 sano markay ku dhammaato inaad xilka u qalantid in lagu doorto iyaan kale muddaxuleed kale waxaa ka dhiman 6 bilood ka fikir 6 bilood keen ra-iisul wasaare kula shaqeeya
kulana hanta qulubta ummadda Soomaaliyeed mar kale